waxay dooratay naarta jahannamo waxayna ka soo tagtay meel aad iyo aad u qurux badan. waa allah subxaanahu wa tacaala kaaga dhigi doono guri aad u barwaaqo badan oo noloshaada maalinta aakhire aan laga weydiin doonin wax su'aal ah. waa xajka. waxaan ka hadlooyaa fanaanadda caanka ah ee xaliim gobaad oo ku jeejeestay allah subxaanahu wa tacaala. waxayna tiri aniga ma rabi meel aad iyo aad u qurux badan, waxaan rabaa inaan nolosheeda ku dhammaysto naar. waxayna hadalkaas tiri xaliim gobaad. waa fanaanadda caanka ah oo inta badan heesaheeda la hulila yahay ee sannadkan. waxayna jirkeeda ka dhigtay meel qof walba ku fasaxaado oo malaayiin qof ay fasaxa siiday, oo isla markaasna ay tahay gabadha ugu caansan ee gayiga Soomaaliyeed, gaar ahaan fanaaniinta Soomaaliyeed. markaan ka hadlayno waxay tagtay xajka. waxayna tiri heesaha waan iska dhaafay, balse markii xaj ka soo duushay oo magaalooyinka ay timid waxay tiri waxaan bilaabayaa fasaxaadkii oo aniga shacabka Soomaaliyeed ku wadi. dadka Soomaaliyeed ayaa aad u la yaaban dhaqan xumada ay ku dhaqmayso fanaanadda caanka ah ee xaliim gobaad, oo isla markaasna ay bilowday fasaxaadkii iyo in ay jirkeeda ku ganacsato. xaliim gobaad oo loogu bartay heesaha jaceylka oo isla markaasna qof walba ay dhagaysto. xaliim gobaad markii xajka tagtay waxay tiri heesahayga ha la iska dhaafo oo dembi weeye. hadda waxay leedahay heesahayga waa aadi, qof waliba waa dhagaysan karaa. xaliim gobaad oo inta badan loogu bartay heesaha jaceylka waxay ku dhalatay dalka Jabuuti oo isla markaasna halkaasi ku soo barbaartay. waa fanaanad Soomaaliyeed oo isla markaasna loogu bartay in ay samayso wax la yaab badan oo showyaal far badan ka qayb gashay. haddaba warbixin ku saabsan ayaa hadda idin diyaarinaa. mardhow ayaa ka daawan doontaan YouTube-ka wariye Abwaan Ciyaar Jecel ama Abwaan Ciyaar Jecel. laag iyo subscribe noo saar walaalayaal.